sheekadani qamar bay qosaysaa hadda video baan soo daawaday gabadh oo lahayd way la hadashay 55 second wax saas isla hadleen qol baan ku jiraa suun baa layla dhacayaa maxay buu yiri andan sida gabadhii isagu wada hadlayba qolka waa loo soo galay gabadh baa ka ag hadashay uu dhahdo telefoonka markii uu dhigo waa lagu jaray but anyway anu waxa soo dhawr mahayo ilaahay baa og baan waxaan ka hadlay waxay tahay lama xiriirin lama soo xiriirin snapchat-kii baan galay hababa waa carray snapchat-kii baan galay snapchat-kii baan akhriyay wax alla wuxuu wiilku soo qorayo dhan gone deleted intaydun baa la arkayaa sidii qof waalan oo kaligeed sheekaysanaysa you know thanks huno ha huno you know waa la caadi wax alla wuxuu isagu soo qorayo dhan waa masaxay intaydii kali meesha chatka kaligeen baa ku haray sidii qof kaligeed sheekaysanaysa oo kale so waxaan leeyahay adduunyadan waa laba cisho before it's too late maxaa la dhahdaa familiyaal meeshan joogaan Nairobi walaalo waxay doontaa ha noqoto Soomaali Maxamed ana waxaan dhihi cover doona family kan waxba ha dhaxgalina but like at least halala hadlo you know because bari toole haday wax dhacaan intaas shalay ku noolaan lahayd maanta kad war doono garab istaag walaalka because adduunyadan waa laba cisho how many legends ba iyago markay qayladaan dirsadaan ee cidna u jawaabi weydo markay dhintaan hadhow laga daba shalay la dhahaa oo la baaye why didn't I do this why didn't I do that waxaan garab istaag waxaan garab u sii markuu baahanayo you know so I would just say horta waxyaabahan la kala qarqarinayo iyo waxyaabahan kala dhudhuumashada Allah afduubtay qof la afduubto mobile haysta ma aragteen bismillah dadka Liibi joog waa laga soo duubi jiray ka karataas soo duubo aska dhiga aniga dadka qaadays ku xaraxtay ka musdaba waxa waa Riyaan oo ku soo share gareysay Snapchat-keeda dhaga hadal ay ku dhaga hadlaysa Qamar Suugaani intii ay dhalinyaro aragtay isku hareereed soo fariisteen ayada dhexda u fariisatay leedahay Quraan ayaa laga saarayaa dadka xanuunsan oo dadka oo sixran hadalkaas oo u eg jees iyo muuqaalkii ka horeeyay oo dhageysateen codkeeda gabadha ka horeysana waxay gabar ahayd asxaab la ahayd Qamar say sheegtay oo tirmo qoraaladii wixii isku hadli jirna ayuu delete garay horta aniga Snapchat waxaan ku aqoonay qoraalka qofka marka isku hadashin in uu tirtirmo automatically hadda wali waxaan u maleynaa xiliyadan daba waxay ka dhigeen 24 saac okay marka gabadhan waxay leedahay waxay ugu dambeysay mar hore oo meelo ila soo hadlin qoraaladiisana waxay leedahay wuu delete garay macnaha macquul ma ahan in uu Qamar qoraal walba u soo qoro oo safe uu leeyahay ayadana qoraal walba uu qorto ee safe ee leedahay ma fahanteen oo say ayadaba sheegaysa ee leedahay qoraal waxa jira aan dhaqsi aan ka jawaabeen oo shaqo aan ku jiray macnaha all qoraalada dhan say u safe gareysmeen haddii ay jirto si qoraalada loo safe gareysto walaalayaal oo ii sheegay dad badan asxaabna faar ku soo qaban lahaay yaa intaasna waa kaftan anyway guys waxa waaye say arkayseen horta reerkan dhibaato baa macnaha family problem baa haysto warkiyo kooban oo koombo ku jiro family problem ayaa meeshan ku jiro ma fahanteen dadna way ka faa'iideysanayaan marka waxaan leenahay horta Ilaahay tawfiiqda ha waafajiyo family problem ma sahlano gabadhan hore guri uga soo dumay guri inuu ka dumana ma rajeynayno asagana sidoo kale hore baa guri uga soo dumeen marka waxaan leenahay Ilaahay maaragta tawfiiqda ha waafajiyo dhamaantiin walaalahay khayr badan aad rajeynaa muuqaalka intaas ayaan ku soo jiri doonaa insha Allah ma wanaagsan qof walaalka boogtiisa in la qodqodo marka muuqaalka halkaas ayaan ku soo afjaraa insha Allah waxa idinka rajeynaa muuqaalka inaa meel sare ii gaarsiisiin ina la gareysiin commentigana wixii ra'yi ah aad ku dhibato waxa u tahay xor waxa la oo ra'yigaaga ah ay commentiga nagula wadaagi kartaa oo anshaxa ku jiro insha Allah taala walaalihiina u soo duceeyo haddii calafkooda meeshaas ku ekaay in ay maaragtay si nabada oo wanaagsan oo sharaf iyo qiimo ku jirto oo lagu kala tagi jiray ay ku kala tagaan haddii calafkooda isku dhimayahna shaydaanka Allah maaragtay ka qabto ayaan ugu duceynaynaa walaalahay waa idinka codsanahay inaan maaragtay ila gareysiin sidoo kale haddii channelkayga oo subscribe ku ahayn waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa daawada inaad subscribe inoo saarto gambaleelkana aad furato gambaleelka wuxuu kaa caawinayaa inaan muuqaalka aan soo geliyo aad noqoto daawadaha ugu horeeyay aad iyo aad u maasan tahay muuqaalka midig aan bidix soo kori doonana iyo daawo ina la garay see you next video